Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Waxaan ka hadli doonnaa sababaha loogu dardaarmo caleenta koostada, qaababka ugu fiican ee loo isticmaalo, iyo qiimaha uu leeyahay koostada. Caleenta koostada ama spinachka waxaa lagu tiriyaa cunnooyinka ugu caafimaadka badan sababtoo ah waxaa ka buuxa fitamiino, macdano iyo walxaha jirka sunta ka saara. Waa qudrad kulansatay nafaqo kala duwan oo qayb kasta ahi oo jirka ka mid ah wax u tarta. Waxaa ka buuxa fitamiin A, fitamiin C, fitamiin E, fitamiin K, folic acid, calcium, magnesium, potassium, iyo xadiid. Waxaa kaloo laga helaa maadooyinka lutein, zeaxanthin, quercetin, iyo nitrate kuwa oo caafimaadka faa'iido u leh. Haddaba waxaan halkan ku xusi doonnaa qaar ka mid a faa'iidooyinka waaweyn ee laga helo caleenta koostada ee cilmi baaris ahaan la hubiyey. Caafimaadka wadnaha. Koostada waxaa ku jira xaddi fiican oo maadada nitrate. Maadadan waxay wanaajisaa wareegga dhiigga, waxay dejisaa dhiig karka, waxay yareysaa halista wadna xanuunka. Daraasaad la sameeyey waxaa lagu arkay in fitamiinada, macdanaha iyo walxaha sun saarista ee ku jira koostada ay sare u qaadaan caafimaadka wadnaha. Tan xigta, ka hortagga dhiig-yarida. Koostadu waa qudrad hodan ku ah macdanta xadiidka. Qofkii joogteeyana isma arkaan xanuunka dhiig-yarida, khaasatan nooca ka dhasha xadiid yaraanta. Caafimaadka indhaha. Caleenta koostada waxaa ku badan maadooyinka lutein iyo maadada kale ee zeaxanthin loo yaqaano oo u roon caafimaadka indhaha, kuwa oo yareeya halista caadka indhaha fuula iyo xanuunka macular degeneration. Waxay kaloo qudradani ay qani ku tahay fitamiin A oo kordhiya awoodda aragga. Difaaca jirka. Koostadu waxay caawisaa awoodsiinta difaaca jirka. Waxay ka hortagtaa jeermisyada dhibaatada badan ee soo weerara habdhiska difaaca jirka. Tan xigta, caafimaadka lafaha. Koostadu waxay adkaysaa lafaha maadaama ay xambaarsan tahay waxyaabaha ay lafuhu u baahan yihiin sida fitamiin K iyo calcium. Waxay ka hortagtaa cudurrada lafabeelka. Dheefshiidka. Koostadu waxay u roon tahay dheefshiidka, waxayna ka hortagtaa calool istaagga. Waxay kaloo u roon tahay dadka qaba gaaska. Caafimaadka uurka. Koostada ama spinachka waxay u wanaagsan tahay hooyooyinka uurka leh maxaa yeelay waxaa ku badan folic acid oo caawisa koriimada uurjiifka kana hortagta in cilladii uu ku dhasho haddii maadadan ay ku yaraato jirka. Sidaa awgeed, hooyooyinka uurka leh waxaa lagula dardaarmaa in ay ku dadaalaan cunista koostada ama spinachka si ay uga helaan fitamiino ku filan koriimada uurjiifka. Xakameynta cudurka macaanka. Koostadu waxay kordhisaa xakameynta xanuunka macaanka sababtoo ah waxaa ku jira asidka alpha-lipoic loo yaqaano oo hoos u dhiga heerka sonkorta dhiigga, kordhiyana shaqada iyo firfircoonida hormoonka insulinka. Sun saarista. Walxaha loo yaqaano phytonutrients ee laga helo koostadu waxay jirka ka nadiifiyaan qashinka iyo sunta. Tani waxay yareysaa caabuqa iyo halista cudurrada. Fitamiin A iyo fitamiin C iyo fitamiin E. Maqaarka iyo timaha. Dhanka waxtarka haddii aan isla eegnana waxyaabaha laga helo koostada waxay u roon yihiin caafimaadka maqaarka iyo timaha. Fitamiin A-ga waxa uu tinta iyo maqaarka ka ilaaliyaa qaleylka, waxaana uu dib u dhigaa soo shacbixidda calaamadaha gabowga. Dhinaca kale, fitamiin C waxa uu ka qayb qaataa soo saarista borotiinta collagenka, waxaana uu maqaarka ka ilaaliyaa dhaawaca falaaraha cadceedda, halka fitamiin E ee uu dhalaal siiyo maqaarka iyo timaha. Waxaa intaa u dheer, macdanta xadiidka oo jirka ku yaraata waxa ay ka mid tahay sababta ugu badan ee keena timo daadashada, waxaana lagu hortegi karaa in lagu dadaalo cunnooyinka hodanka ku ah macdanta xadiidka sida koostada. Waa maxay khasaaraha koostadu? Haddii aan isla eegno dhibaatooyinka ka dhasha marka la isticmaalo koostada, gaar ahaan si xad dhaaf ah, koostada waxaa ku jirta maadada loo yaqaano oxalate oo ka qayb qaadata samaysanka dhagaxaanta kelyaha. Sida aawadeed, isticmaalkeeda oo aad loo badsado waxay kordhisaa halista dhagaxaanta kelyaha ku samaysma. Dadka qaata dawooyinka dhiigga jilciya
waa in ay ka fogaadaan isticmaalka spinachka maadaama uu ku badan yahay vitamin K oo door weyn ka ciyaara guntamaha dhiigga. Sidee cabitaan looga sameeyaa? Koostada cabitaan ahaan ayaa loo cabbi karaa. Waa lagu dhex shiidan karaa furuutka iyo khudradda kala duwan sida muuska, timirta, tufaaxa, afakaadhaha iyo karootada. Sidee loo kariyaa? Waa in koostada lagu uumiyaa biyo ee lama karkariyo. Haddii la karkariyo waxaa ka dhinta nafaqada ay xambaarsan tahay. Markii la uumiyo dheecaanka ay dhashana lama daadinayo oo koostada ayaa suugo looga dhigaa si aysan ku dhaafin nafaqooyinka ay xambaarsan tahay. Koostada oo meelo badan oo caalamka ka mid ah aad loogu cuno, gaar ahaan Soomaaliya, koostada waxay dhakhaatiirtu ku talinayaan in aan aad loo karin si aysan uga lumin nafaqada. Haddana dad badan ayaa aad u bisleeya iyagoo ku dhex karkariya khudradda kale sida baradhada iyo karootada. Koostada waxay ka mid tahay bahda la isku yiraahdo Chenopodiaceae ee uu ku jiro beetraafka iyo caleemaha kale ee cagaaran sida koostadoo kale. Khudraddaasoo kale ayay u dhadhan eg tahay, waxaana jira 3 nooc oo koostada ah: kuwa caleenteedu adag tahay, yara adag tahay iyo kuwa jilicsan. Koostada afka Ingiriiska lagu yiraahdo spinach waxaa laga cunaa Soomaaliya qaybo ka tirsan iyo guud ahaanba caalamka. Dadka qaar ayaa ku cunaa canjeerada ama soorta, waxaana loo kariyaa siyaabo kala duwan. Haddaba nafaqada ku jirto haddii aan isla egno qiyaasta waa 80 garaam oo koosto ceyriin ah, waxaa ku jira 20 calories oo u dhiganta 82 calories ama 2.2 garaam oo protein ah. Waxay sidoo kale leedahay eber dhibic 6 dufan ah. Waxay sidoo kale leedahay 1.3 garaam oo carbohydrate ah. Waxay leedahay 2.2 garaam oo fiber ah. Waxay leedahay 136 miligram oo calcium ah. Waxay sidoo kale leedahay 1.68 miligram oo bir ama iron ah. Waxay sidoo kale leedahay 91 miligram oo folate ah. Waxay sidoo kale leedahay 21 miligram oo vitamin C. Haddaba 10 faa'iido ee koostada ay leedahay waa joogteynta aragga fiican, waxay sare u qaadaa tamarta. Koostada ayaa in muddo ah loo yaqaanay dhir soo celisa tamarta ama energy-ga, sare u qaada firfircoonida iyo tayada dhiigga. Sababo fiican ayaa jira oo arrintan taageeraya, waxaana ka mid ah birta ku jirta ama iron-ka. Birta waxay door weyn ka ciyaartaa shaqada dhiigga cas red blood cells, iyadoo gacan ka geysata in oksijiinka ay gaarsiiso jirka ayna caawiso soo saaridda tamarta. Koostada waxaa sidoo kale ku jirta maadada oxalic acid oo naga caawiso nuugidda birta. In si khafiif ama aad loo kariyo ayaana hoos u dhigi karta samaysantan. Waxay gacan ka geysataa caafimaadka lafaha oo aad u xoojiso, waxay la dagaalantaa kansarka. Cunooyinkan oo ay khubarada caafimaadka ay sheegeen in ay ku badan tahay sida kuwa cagaaran oo koostadu ay ka mid tahay, waxay leeyihiin saameyn difaac, waxayna yareyn karaan khatarta kansarka. Tani waxay sabab u tahay in ay ka buuxaan maadooyinka polyphenols, waana kuwan iyo fitamiino kale sababta ay ugu jiraan waxyaabaha ka hortaga kansarka ee ku jira koostada. Waxaa ku jira maadada sunta ka hortagta. Qiimaha maadooyinka dhirta sida koostada waa inay jirka ka caawiyaan ka hortagta amaba ka hortagga saameynta waxyeelada sumowga. Muddo kadib sunta waxaa ka dhalan kara xaalado da'da la xidhiidha sida cudurrada wadnaha iyo kansarka. Waa il muhiim ah oo laga helo fiber. Koostada waxaa ka buuxa maadada fiber-ka. Waxay maadadan dedejisaa inay jirka soo dhaafaan wasakhda ka soo hadhay cunnada ee mindhicirada ku jira. Waxay sidoo kale caawisaa caafimaadka caloosheenna iyo difaaceena jirka. Waxay xakameysaa miisaanka. Maadooyinkan phytochemicals iyo walxaha dhireedka ee ku jira koostada waxay gacan ka geysan karaan yareynta qaadashada cunnada iyagoo kicinaya hormoonnada. Waxay hoos u dhigi kartaa saameynta cunnada ay dufantu ku badan tahay. Tijaabooyin lagu sameeyay xayawaanada ayaa lagu ogaaday in qaadashada badan ee koostada ay yareyn karto gaar ahaan saameynta daran ee cunnada ay dufantu ku badan tahay iyo in kolestaroolka uu ku bato beerka. Waxay caawin kartaa caafimaadka maskaxda. Koostada waxaa ku jira maadooyin ka hortago isku buuqa, waxaana la ogaaday inay hoos u dhigto hormoonka isku buuqa. Maadaama tijaabada lagu sameeyo xayawaanaadka, waxaa loo baahan yahay daraasaadyo dheeraad ah oo lagu ogaan karo in sidoo kale bini'aadanku ay faa'iido u leedahay.
koostadu qof walba miyay u fiican tahay? Intana badan koostadu way inoo fiican tahay, waana cunno nafaqo badan oo aan ku darsan karno cunnooyinka maalinlaha aan cunno. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dad qaar oo ay tahay inay ka taxadaraan, maadaama ay ku badan tahay maaddooyin tiro badan, gaar ahaana maadada oxalate-ka. Uma fiicna dadka taariikhda u leh dhagaxaanta kelyaha ama oxalate-ka. Dadka qaata dawooyinka dhiig qafiifiyaha sida warfarin ayaa lagula talinayaa in ay ka digtoonaadaan in koostadu uu jirka vitamin K uu ku kordhiyo. Caadi ahaan talada la siinayo dadka dawooyinka qaata ayaa ah inay iska hubiyaan qaadashada fitamiinkan, ayna dhakhtarkooda la tashadaan ka hor inta aysan isbeddel ku sameynin cunadooda. Muuqaalka inta ayuu ku egyahay. Fadlan subscribe inoo saar channelkan, like garee, meel fog inoo gaarsii, asxaabtaada la wadaag, qaybta commentiga faalladaada iyo aragtidaada inoogu reeb.